Ciidamada maamulka SSC Khartoum ayaa ku qulqulaya meelo kala duwan oo ka tirsan furimaha dagaalka oo ay isku horfadhiyaan maamulka Somalilan. Qulqulkan ayaa yimid maalmo kadib markii hogaamiyaha Somalilan Muuse Biixi uu booqday furimaha Og iyo Sarinta, kadibna ku dhawaaqay inuu geli doono dagaal ay ku soo ceshanayaan deegaanadii laga saaray sanad ka hor. Sidoo kale waxay ku soo aadaysaa iyada oo maalmo kooban ay ka xigaan maalintii laga saaray Gooja Cadde Somalilan oo aadka loogu jabiyey maxaabiista badan iyo hubkana looga qabsaday. Sidoo kale iyadana waxaa la saadaalinayaa inay furin kale ka furato gobolka Sanaag oo iyadana la isku horfadhiyo oo ka tirsan goobaha la isku horfadhiyo. Muuse Biixi ayaa weli ka simrila dagaaladii looga saaray gobolka Sool, sidoo kalena gobolka Sanaag ayaa iyaguna hub urursi ku jira iyo ciidamo iyo isku habar wacasho. Somalilan ayaa waxaa ka soo gaaray jab xoog leh oo ciidamana looga qabsaday, ciidamana looga laayay, hub aan tiro beel ahna looga qabsaday. Muuse Biixi ayaa doonaya doorashada ka hor inuu dagaal ka rido gobolka Sool furimaha la isku horfadhiyo si doorashada dib loogu dhigo. Ha yeeshee, tan ayaa noqon doonta taariikh mar kale haddii dagaalkaas uu dhaco.